Assalaamu calaykum. Toban wax oo aad ku anfacayo inaad ka og tahay diyaaradaha iyo duulimaadka. Kow, mar kastoo diyaarad raacdo waxaa maqashaa mudanayaal iyo marweyn waxaa isku diyaarinaynaa inaan kacno. Fadlan daaqada daaha ka qaad, miiska ku horyaalna laab, kursigaadana toosi suu ahaa ku celi. Wax yar kadibna nalkaa la damina. Maxaa loola jeedaa arrimahaas? Midda hore, nalka waxaa loo danshaa si jawiga la joogo oo saxda indhahaada ula qabsadaan. Laa qadar Allah, laakiin diyaaradda markay kacayso ama ay degayso hadduu dab ka kaco matoorkeeda V1 intaan la dhaafinna ay istaagto runwayga, isla markiiba waa in sida ugu dhaqsaha badan ugu nidaamsan looga wada dagaa. Waxaa la diidaa inaa la mid noqoto qof habeen suunalka ugu daarnaa hal mar zam ka dhahay, iyo si uu qofka u arko una raaco dariiqa saxda ah ugu hagaya albaabka ka bixi kartid. Tanna waxay noo dhiibay tan kale. Haddii hal cararo la dhaho qofka geeska hadduu asi baxo miiskiisoo furan qofka kale suu baxa waa ku dhib. Qofka markuu naxo ama uu cabsadana wuu isku qasqasmaa, wax yar aan dhib ahayn dhibay ku noqdaan. Kama fiicno kowba in diyaar la ahaado. Sidoo kale qofka kaa horeeya hadduu kursigiisa gadaal u soo liiciyo adiga cariiri ay kugu noqonay inaad baxdid. Haddaa qof buuran tahayna ha sheegin. Ugu dambeyn, daaha miraayadda ka leexi waxaa loo dhahaa si rakaabka ama air hostesska ku arkaan hadduu dab dhaco geeskee waay kaan laga bixi karin. Markay dabdamiska imaadaanna say u arkaan gudaha dab ma gaarin mise ma gaarin. Labo, haddaad tahay dadka jecel inay daaqada fadhiistaan si ay uga fiirsadaan magaalooyinka kor, waxaa hubaale inuu dalaalkan yariiska ee ishaada ku dhacday. Laakiin waxaa in la isweydiiyo mudan, kanna muxuu meesha ka qabanaa? Dalaalkan waa wax kas loogu suubshay aadna uga qayb qaadanayo badbaadada diyaaradda iyo dadka saaran. Markaste diyaaradda kor aado waxaa dhacayo cadaadiska hawada bannaanka, isla markaana waxaa kaca kan gudaha diyaaradda dhexdeeda. Isbedelada labada pressure, kii bannaankoo dhacay iyo ka gudahoo kacay, waxay dhib ku tahay diyaaradda dhan, khaas ahaan miraayadaha. Haddaa miraayadaha fiiriso waxay ka kooban yihiin 3 qayb, labada bannaanka xigto iyo midda gudaha soo xigto. Marka la suubinayo ta bannaanka xigto aadaa loo adkeeyaa si ay u xamisho pressureka bannaanka. Tan dhexda ku jirtana waa tan duleelka leh, waxaana la dhahaa duleelka ay ka neefsato, wuxuuna miisaamaa duleelkaas pressureka ama cadaadiska kala duwan ee labada dhinac ama labada gees ka lahaaya daaqada. Kus waxaa ognahay physics ahaan inay hawada ku saamoodo pressureka iyo qabowga ama kuleelka, taas oo saameyn karta miraayadda. Kadibna waa qaybta adigu soo xigto aan ku xukmaynin si fudud. Marka xataa hadday qaybta bannaanka wax gaaraan, labada kale tan gudaha iyo tan kale ilaa inta laga degaayo waa lagu nabadgalaa. Marmarka qaar qaybta dhexe waxaa lagu arkaa baraf, waana iska caadi haddaan la bedelin pressureka hawada gudaha diyaaradda. Dadka sanka iyo dhagaha ay dhiig ka keenayaan. 3, dadka qaar waxay dhahaan cuntada diyaaradda ma macaano. Cilmi ahaan waa iska runtaas, waxaa isbedelay awoodaada dhadhan iyo tan urinta. Laakiin ma ogtahay inay mamnuuc ka dhigeen shirkado badan oo caalamka inuu bayloodka iyo staafka diyaaradda ay cunaan cuntada rakaabka diyaaradda cunayaan, oo ay cunaan cunto kale ay iyaga soo qaateen ama la siiyo. Sababtana waa say ugu jiraan cuntadaas maadaama cunto badan oo ay maqaayad soo diyaarisay ay tahay. 4, marka albaabka diyaaradda la xiro waxaa bilaabanaysa shaqada dadka air hostesska, ayagoo ku tusaya haddii laa qadar Allah wax dhib ah dhacaan qofka soo isku badbaadin lahaa. Safety suitka sida loo xirto, nalka waterproofka sida loo isticmaalaa, maska si sax loogu xirtaa. Nasiib daro laakiin waxaa la iska wada ogyahay inay jiraan dad dhiitiya ama xadogo la siiyo markay qabow noqoto diyaaradda dhexdeeda. Laakiin ma ogtahay inay safety suitka naftirkiisa isna la xado. Ka waran safarkii ka horreeyay haddii la qaatay, iska hubi markasta. maxaa moobilka damiya ama flight mode saara loo dhahaa diyaaradda dhexdeeda horta? Maxaa dhacaya haddaan daminin? Run miya inuu moobilka saameynayo kacitaanka diyaaradda? Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay diyaaradda qarxi karto ama wax la mid ah. Maxaa ka jira warkaas? Runta waa moobilka khatar kuma aha diyaaradda, laakiin wuxuu tashwiish gelinaa wada hadallada bayloodka iyo hagayaasha diyaaradda dhulka joogo. Bayloodka wuxuu ag fadhiyaa sameecadaha iyo raadiyowga diyaaradda dhan. Soo dhicitaanka moobilkaada ama inuu anteena raadsado waxay tashwiish gelin kartaa information muhiim ah oo u gudbin lahaayeen ilaalada dhaqdhaqaaqa hawada bayloodka diyaaradda saaran tahay. Waxay la mid tahay adoo sameecad ag fadhiyo telefoon la soo dhici rabo camal. saas darteed inaad damiso moobilkaada danta ku wada jirta. 6,
waxaa laga yaabaa inaa isweydiiso diyaaradaha maxay u qabaan meesha sigaarka lagu dansho maba la ogole. Waxaa laga mamnuucay caalamka dhan ku dhawaad 30 sano ka hor in diyaarad sigaar lagu dhex cabo. Markasta waxaa jiro laakiin dad aan nidaamka raacin hadday lacala dhuuntaan ay ku dhex cabaan musqusha sigaar si aysan qashinka qalalan ugu dhex tuurin una sababin dab wada aafayn kara diyaaradda oo dhan. 7 haddii musqulaha dhan gudaha laga furi karo tan diyaaradda bannaankana waa laga furi karaa. waxaana loogu talagalay hadduu qof ku dhex suuxo ama cunug yar ku dhex xirmado in si fudud looga soo bixin karo. haddaa qof waayeel wado ay ku xirmato inta kor u qaad meeshan geeskan u jiid cagaar hadday noqoto waaba furtayba, balse haddaa falfalaad leh u furtid markii la dago xabsi isku sii diyaari. 8 ma ogtahay in loo ogol yahay bayloodka safarada dhaadheer inuu jiifto uu xoogaa nasto diyaaradda dhexdeeda inta hawada lagu jiro, wuxuuna qabaa qol u khaas ah. hurdadaas waxaa loo yaqaanaa nasasho laga warqabo, waa la kicinaa haddii xilligii loogu talagalay la gaaro. intuu hurdaa waxaa sii wada caawiyihiisa iyo autopilotka. 9 ma laga yaabaa inuu albaabka diyaaradda uu furmo ama qof furo iyadoo diyaaradda hawada sare ku jirto? jawaabtu waa inta albaabka la furin horta qof ma furi karaa albaabkaas. markastoo diyaaradda kor u kacdo markastay xoog zaa'id usii baahato in la furo. hadday hawada sare joogto maba furi karaan qof iyo 2 xataa 3 qof ma furi karaan. si aa u furto albaabka waxaad u baahan tahay awood aan caadi ahayn, cadaadiska aad u sarreeya dartiis aadayna khatar u tahay inaa isku dayda xataa. 10 diyaaradda markay duulayso kumanaan fiid dhulka korkiisa waxay markasta taarget u tahay biriq inay ku dhacdo. diyaaradaha ganacsi celcelis ahaan sanadkii hal mar ugu yaraan biriq waa ku dhacdaa, laakiin nasiib wanaag badanaa sooma rido sababtoo ah diyaaradda korkeeda waxay ka suubsan tahay macdan si fiican u gudbiyo korontada. hadday biriq ku dhacdo danabyada korontada waxay ka kala daadanayaan geesaha qolofka diyaaradda ayadoo waxna gaarsiin gudaha diyaaradda. waxay ka faa'iidaysteen oo isticmaaleen fikraddii fiisigiska ahayd Faraday cage. sidoo kale bayloodka wuxuu ku dadaalaa intii ugu macquulsan inuu iska ilaaliyo biriq iyo duufaano meelay ka jiraan, laakiin haddii laga fursan waayo waa la dhexmara. marka la degana waa la fiirina diyaaradda qolofkeeda kore inay wax gaareen iyo in kale. haddaa janalka ka cusub tahay subscribe dheh, barnaamijkan hadduu ku cajabiyo fadlan like dheh, asxaabtaadana la sii shargaray. wassalaamu calaykum.